الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعل الحسن إذا شئت سهلا شالي waxaynu soo bilownay qarnigii 7aad ee hijriga ama 12aad ee waxaan jeedaa 13aad ee miilaadiga bilowgiisii caalamku sidoo qaybsanaa dawladihii muslimiinta jiray waan soo dul maray si kooban baan uga soo hadalay bari la galbeed iyo dawladihii reer Yurub ama Kiristaanka ah iyaguna jiray xilliga kuwii ugu awooda badnaa labadaas yani kuwa sii jiray bay ahaayeen laakiin marxaladda waqtiga la joogay aan itaal badan lahayn labadooda midkoodna aan itaal badan lahayn qolada saddexaad waxay ahaayeen Mongolian ama Tatarki bay ahaayeen halkaas aynu ka bilaabaynaa insha Allah من هم تتار مرك سكوبان مرك الله شجعي أهاي تتار ظهر دولة التتار في سنة 603 وحساب حديد دولة تتار صدح بقول لحدي هجرة كون يلا بقول يصدح دي ميلادي تقريبا صبحتان كده جورينا وحوها منغوليا هوي قشينا بارك الروس أيه كصباح هذا وقاميدي ورينا جنكيز خان بالورن جري جنكيز معنيس waxa weey جنكيز خان جنكيز يا خان والله با magac la isku daray قاهر العالم أما ملك ملوك العالم ومagac uu la baxay markii uu qabaa'ilka Mongolian-ka mideeyay ee dawlad sameeyay ninka dawladda sameynaya waa nin xoolo dhaqata waxa ma qoro waxa ma akhriyo waxa la qoraa wuxuu akhriyana ma jirto markii dawladda Shiinaha ay qabsadeen ayuu yiri qoladeenkii culimada ahaa miyaan farta Mongolian-ka la qori karin marka fartii Mongolian waxay isku dhawaadeen Igorka qolada la yiraahdo ama Weimorka la yiraahdo Igorku waa qolada Turkiya muslimiina imikana ilaa hadda Shiinaha degan qoladaas ay isku fardhawa farta kuwa inooga soo dheego noo qoraa la halkaas ayaa laga qoray toodii marka magaciisa horena Timujin baa la oran jiray magaca hore loo bixiyay reerkiisu u yaqaaneen suldaanki beesha Tatarka ayaa maalin ku dhashay la dilay isaga suldaanka la dilay Tatarka suldaanka magaciisa waxa la oran jiray magaciisa waxa la magac Timujin kan u dhow ahaa markaas uu aabihi markuu isaga dilay wuxuu ku magacaabay ninkan uu ka isagu marka ka aarsanay ninkan marka Timujin ha ahaado magaciisa ama Genghis Khan ha ahaade wuxuu ahaa rajulan safakan lildima dhiig yacabuha dhiig daadin badan wadareeriisana uma roonayn dadka kale u qabsadeen uma roonayn waxa kale oo ahaa hogaamiye military oo aad u adag buu ahaa waxa kale oo awood u lahaa inuu dad fara badan soo ururin karo muddo gaaban inuu dad isku keeni karo tiro badan waxyaabo ninkan dhaqanka u lahaa waan arki doonaa oo kaga duwanaa hogaamiyaasha xilliga jiray ama maaragtay qawaaniintii dagaalka xilliga jiray wuxuu ka bedelay waan arki doonaa wax badan oo dagaalada ka bedelay oo ku cusboonaaday baa jiray taagtiig cusub oo dagaalka kolkii qabaa'ilka Mongolian-ka dhexdooda uu la dagaalamayay reeraha Mongolian-ka uu mideynayay wuxuu dhaqan u lahaa midna reerka uu jabiyo ee uu ka adkaado tusaale ahaan waxa isku qabsaday qabiiladii Kiyaan isaga iyo in adu oday adeero isaga oo Talehotay magaciisa saas kale Talehotay magaciisa la yiraahdo Talehotay markuu ka xoog roonaaday ee uu jabiyay waxa ku jiray ciidanka Talehotay laba taliye oo cajiiba aad awood badan dagaalyahaneen ah midna Sabatay la yiraahdo midna Naaya la yiraahdo labadii nin marka kan Sabatay la yiraahdo isaga waa la qabtay oo reerkii markuu is dhiibay ayuu Timujin soo dul taagay wuxuu yiri nin waxa ku jira reerkiinan leebkii qaansada xariif ku ah halka qoortana iga dhaawacay ninkaasi kuma ahaa buuro waa anigu ahaa buuro intuu istaagay saraakiishiisa waxay damceen inay qoorta ka gooyaan u kaadiyay buuro ninkan oo kale qoorta laga ma gooyo soo dhawow
maanta laga bilaabo magacaaga qaws baa lagu yidhaahdaa saacadda doontaad guri taambuugayga ii soo gali kartaa ciidankeygana hogaamiyayaasheeda ku jirtaa buuri waa ninkii isaga dhaawacay kii kale naayana wuxuu odaygii talehotay buu intuu fakiyey iyo dhulkii uu timajin xukumaya markuu ka saaray buu ku yidhi war heedha faa'iido kolley adigu ma lihide dhulkii uu timajin xukumi jirayna waan kaa soo saaray orodoo qabaa'ilada kale ciddii ku magan gelin karta u tog adigu xaggee tegi buu yidhi anigu isagaan ku noqonaya oo dee haddeed wuxuu yidhi reeraha mongooliyaanka isagaa hogaamiye u ah nin kale oo isna magaciisu taata wax noocaas oo kale u egaa oo u shaqayn jiray markii hore timajin aabihii laakiin markan dambe talehota u shaqaynayay iyaa dhexda ka helay odaygii oo dee sii fakanaya wuxuu yidhi anu madaxaagaa baan ku badbaadaya qoortu ka soo gooyay odaygii taambuuggii timajin ku jira waxaa isugu yimiday naayo oo kii fakiyey ahaa iyo kii isaga aabihii u shaqayn jiray qoorta ka soo gooyey waxaa lagu yidhi khaanow laba nin baa halkan albaabka kuu taaganoo raba inay kula kulmaan soo daayay buu yidhi labadii nin baa soo galay mid wuxuu yidhi inaad ciqaabtaan rabaa waa naaya kii kale wuxuu yidhi inaad ii abaalguddaan rabaa kiis yarna wuu wataa kiiska wuxuu ku wadaa madaxii odayga uu soo gooyey buu ku wataa ani inaad ii abaalguddaan rabaa buu yidhi horta kiina abaalgudka rabaa ha hadla buu yidhi kala ciqaabta doonaya hay dambeeya wuxuu yidhi ninkii talehotaya kaa baxsaday ee odayga adeerkaa ahaa ee dagaalka isku hayseen qoortaan kasoo gooyey waa kan madaxiisi kolkuu madaxii arkay buu isaga kor eega wuxuu adigu kii aabbahay u shaqayn jiray waagu aabbahay suldaanka miyaadan ahayn aabbahay baad khiyaantay anaada khiyaantay iminkana waxaad khiyaantay buuri talehotay kan qoorta ka gooyi buuri isaga faa'iido ma laha qoorta ka gooyi buuri kan saddex nin oo hogaamiyayaashiisa abu saddexdaba ayuu khiyaamay buuri adigu maxaad rabtay buuri in lagu ciqaabo waxaan rabay buuri inaad igu ciqaabto ninkani qoorta ka soo gooyey hogaamiyahaygii buu ahaa ana taliya ciidamadiisaan ahaa oo naaya la yidhaahdaa waan kaa fakiyey oo dhulkan adigu aad xukunto oo dhan baan ka saaray oo qabaa'ilka kale dhex geeyey waxaan ku ururkaas fakaan ku yidhi fariid baa tahay buuri ninkiisa daacadda waan baa la rabaa adna maanta laga bilaabo taliyayaashiisa ciidamadaad ku jirtaa buuri labadaasiba musiibada ay muslimiinta iyo shiinaha ku samayn doonaan ilaahay unbaa yaqaana marka uu isagu ciidamada diro marka taana wuu lahaa si tartiibuu u bilaabay dowladda maaragtay uu ballaadhanaysay mongolia ka bilaabantay xuduudka ruushka dhulka ka mida siberia qayb ay gashay oo dadkii qabaa'ilka halkaa deganaa bay kusoo darsatay kadibna xuduudkii shiinaha halkii dayrkii ku yaalay weynaa gidaarkii weynaa shiinuhu ku yaalay ayay timday marka dowladda shiinuhuna siyaasad bay lahaayeen dadka xuduudka ku nool gidaarka dibaddiisa ku nool qabaa'ilkay doonaanba ha ahaadaane sanadkiiba mar bay dowladdu kusoo duuli jirtay marka waxa laga qaadan jiray caruurta iyo dumarka gabdhaha u badan ayaa laga qaadan jiray waxa kalena waa la layn jiray waxay ka lahayd baa la yidhi marka inayna dadkaasi tiro badanin oo aynadu kolkay tiro bataan ay dee hogaamiyihii wax yeeshaan weerar bay kusoo qaadi doonaan kuwana adeegayaal baa laga dhiganayaa marna adeegayaal baa kuwan kalena laga dhiganayaa dowladdiisi markaa kuuriya iyay xagga bari gaadhay muddo yar kadib ilaa kuuriya uu qabsaday shiinuhu qabsaday kuuriya uu qabsaday kuuriya hal dalun bay waagi hore isku ahayd marka dambe 1953 dagaaladii dhacay bay laba ku kala noqotay galbeedna wuxuu soo gaadhay dowladdii Khurasan buu xuduud la yeeshay wabiga Amudaariya kala qaybinayay ya xuduud u ahaa labadooda dowladood tiisa iyo tan koonfurna wuxuu gaadhay badda China waqooyina wuxuu gaadhay Siberia oo dhulka Ruushka imika ah dhul qaybana waa Sahara qaybna waa kaymay leedahay Siberia waa dhul aad u ballaaran macnaheedu dhulka dowladdiisu ay muddadii u horeysay ka hana qaaday sanadihii u horeeyay 1200 iyo 3 ilaa 1200 iyo 9 waa meelahaas 4 sanadood 7 sanadood waa Shiina Mongolia Vietnam Korea Thailand qaybo Siberia hortooyada Laos buuraleydan Himalaya ku taala dhaadhaceeda ku taala xagga Shiina ay xigtaa Myanmar ama Burma Nepal iyo Bhutan intaasoo dal halka ay imika ku yaalaan uu muddo 7 sanadood uu qiyaasti gaadhaysa hal dawlad kaga wada dhigay hal dawlad ayuu ka wada dhigay magaca Tatar ama iyo Mongol
وقرابة سيدان سو شيغنا سميت على أقوام الذين نشأوا في شمال الصين وددك وقويga shiinaha degana gaar ahaan saxaraha goobi la yiraahdo saxaraha goobi ku xatirsan yahay dhulka ruushka ka tirsan yahay tatarku buu leeyahay sheekhani waa asalka qabaa'ilka oo ahaa meesha sii deganaa ana Mongolianku meel kale markale ka yimaadeen laakiin waa uu isku dad waxa marka isku dada tatar Mongol Turki iyo salaaji qadana waa Turkiga qayb kamid ah la qabiilo gooniyo ma waa qabiilo Turkiga kamid ah tatarku ama Mongolianku waxay lahaayeen xilliga Genghis Khan diin cajiib ay lahaayeen oo isku dhex jirta diin aan saafi ahayn kristaan maaha muslimiin maaha marka diin isku dhex jirta Genghis Khan waxa uu isku daray shariicada islaamka waxba ka soo qaatay ilaa dhulkii Shiinaha iyo dhulkan Bhutan iyo dhulkan soo gaaray waa uu qabsaday ilaa qaybada dhulka meelaha iyaga xataa ay deganaayeen dad muslimiin ah ku nool marka dadkii muslimiinta ahaa ee uu la kulmay wixii uu shariicadoodu waxbu ka qaatay masiixiintiina iyagana waxbu ka qaatay masiixiina dhulka way ku noolaayeen labadoo masiixiin iyo muslimiin way tira yaraayeen inta isagu marka eeriyada uu qabsaday boodiyiintana qayb buu ka qaatay boodiyiintu marka diinta ugu weyn bay dhulka ahayd marka kuwa kale oo Confucius iyo Taoist la yiraahdo jiray iyaga laftooda waxbu kaga darsaday ugu dambeeyna wuxuu ka soo saaray book dastuur tatarka uga dhigay oo ay waxa ku qoran yahay de buugaas ku qoran yahay in la yiraahdo warkaas Genghis Khan baa qoray in la yiraahdo Genghis Khan baa qoray waayida fariimaha waxa kamid ah madaxdoodu isku soo diri jireen fura oo Genghis Khan lahaa ama seef uu lahaa ama midi uu lahaa ama maaragtay calaamad fardaha waxa uu ku xidhan jiray mid kamid uu lahaa haday reer kamid reeraha haystaan macnaheedu waxa weeyii waa kuwa ugu sareeya kamid noqonaya marka yaasik ama yaasab uu bixiyay magacaas uu bixiyay shucuubtii waayada jirtay waxay tatarku marka kaga duwanaayeen dhowr qodob oo aan ciidamada waqtiyada jiray aanay lahayn waxa kamid ahayd sur'atu intishaar rahiib si degdeg u faafi jireen مثلا haday duulaanka kolkay ku soo qaadayeen boqortooyadii Shiinaha Xinjiang la oranayay deyrkii baba ka celinaya deyrkii way soo dhaafeen deyrkii uu ka celin waayay magaalooyinkii deyrka ku xigay oo magaalooyin fara badan waxay isku diyaariyeen laba ama saddex magaalo kamidii tanay ku soo wajahan yihiin tanay ku soo wajahan yihiin laakiin hal marba waxay wada weerarayaan 7 magaalo ama 10 magaalo wada weerarayaan 7 ama 10 bay wada weerarayaan ciidankooda si yar bay u kala jajabinayaan oo aan tiradu aanay marka loo eego waqtiga mesela 40,000 oo meel marta 30,000 oo kale oo meel kala marta 30 kale oo meel marta ta kale ciidankooda isgaarsiintu kama go'ayso waxa kale cajiib ku ahaayeen cidda ay weerarayaan laf bay u baranayeen inta aanay weerarin ka hor oo markan uu Shiinaha weerarayay taliyayaasha ciidamada laba nin wuxuu ogaaday inay aad khatar u yihiin goboyo nin la yiraahdo nin kale ni aad u halis yihiin oo laba nin oo generaal military ah oo daacad ciidanka ay ka tahay oo meesha ay ka dagaal galaan bal irbadina aanay ka soo galeyn kuwana wuxuu ogaaday inay niman musuqmaasuqa yihiin oo hadii lacag la siiyo ama wax badan looga sheekeeyo wax kale loogu ballan qaado inayba iska banaynayaan isagu wuxuu marka xooga saaray kuwii musuqmaasuqa sidoo ku ogaanaya marka jawaasistiisii waa soo ogaatay dawladda Shiinuhuna waxaan soo weeraray reer baadiyo yara gadooday unba u haysataa ee nidaamsan oo dawladnimo iyo nidaam ku socda ma moodayaan marka cidda ay weerarayaan waa inay macluumaad aad u xoog badan ka hayaan haddii aanay macluumaad xoog badan ka haynin ma yeelayo inuu soo weeraro xulay wax badan baa dhiman meesha ma naqaano cidda cadawgeena waa inaynu si fiican u garanayno waxa kale oo lahaa ninkan Genghis Khan uu sameeyay nidaam maxkamad tartiib cadiin nidaam ciidamadiisu ay u dagaalamaan nidaam aad u cajiiba oo aad u qorshaysan ayuu isagana sameeyay مثلا waayadii hore ciidamada dawladuhu markay is weerarayaan banaanka la isugu soo baxayay
bidix iyo midig iyo bartamaha iyo xagga dambe saas ay ciidanku ahaayeen kadibna bidixdii iyo midigta waa mubaaraso wax la yiraahdo xaggaana niman baa ka soo bixi jiray xaggana niman baa ka saas dhaqankaas la yaqaan ma jiraan iyaga dhaqankaas labadii ciidan iyaga saamays kaga soo horbaxeen uu eegayaa wuxuu oranayaa halka ay ka ugu awood badan yihiin waa midigta yaani bisaasiintiisu u soo sheegeen macluumaadka ku dhisaya ama waa bartamaha ama waa bidixda ama waa xagga dambe halka ay ugu awood badan yihiin buu wuxuu raggiisa ugu khatarsan oranaya halka weerara idinku inta qolada kale oo dhan jeedaan halka markaa gala ciidankii kalena waa la mashquulin markaa lama sugsugayo waxyaabo ciidan isku soo baxbaxay sheekada iyagoo qayliyo ma meesha soo galayaan tirada ciidankiisuna aad bay u badnayd inta badan 250,000 300,000 laakiin marka uu de wadanka weeraray ciidanka uu yar yareynaya uu kala jijibinaya inkastoo waxyaabo kale ku dhex dardari jiray marka dambe hadana qodobka afraad ciidankiisu waxay kaga duwanaayeen ciidamadii waayada jiray taxamul duruuf qaasiya dhibaato adag ciidanku u adkeysan karaa ciidamadiisa waxaa loogu tababaray dhul barafley ah oo aad u rafaad badan markaas xayawaanka fardaha fuushan yihiin iyo askariga waxaa laga dhigay inay 48 saacadood oo kala qadi karaan faraskuna uu qadi karo waxba cunin askariga wataana uu waxba cunin tababar noocaas la soo siiyay waxa la gaarsiiyay heerka tababarka ciidanka Mongooliyaanka in askariga iyo farasku ay isku mid yihiin koora inuu qabsaday waxa uu baahnaa leebka uu ka dul tuuraya seefta labada gacmood buu ku dagaalamaya gacantani haday goodo gacanta soo hadhay buu ku dagaalamaya ilaa labada gacmood ba la gooyo mooyaan ama qoorta la gooyo ka dhaca mooyaan ma joogsanayo fardahooduna waxay ka adkaysi badan yihiin fardaha Shiinaha ay haystaan iyo kuwa Khwarizmka ay haystaan Khwarizmka Shiinaha iyo fardaha ay haystaan waa fardahan caadigeenu aragnay de waaweyn xoog badan leh iyo Turkiga ay haystaan iyaguna waa fardo waxoogaa ka yara gaagaaban marka sidii loo carbinayay fardahaasi way xoog badnaayeen waagii hore laakiin sidii loo carbinayay waxa laga dhigay muruq meeran baa laga dhigay faraskiiba ama geeyadiiba marka duruuf adag buu u qaad iyo maaragtay askari walba wad ka sagaray shan qiyada askariya baarica hogaamin military oo aad u cajaa'ib badan buu lahaa oo uu qorshayaasha dagaalkiisa ku bedeli karo dagaalka dhexdeeda xataa uu ku bedeli karo tii qorshihii uu marka hore soo sameystay hadii uu socon waayo ku cusub buu sameeynaya oo halka lafteeda uu ku sameeynaya kolka horena uu soo sheegay wuxuu oranayaa haday saasi noo suurto gal weydo saasaan yeelaynaa haday taas suurto gal weydo sidaa kala yeelaynaa laakiin in la jabaa ma jirto qodobka lixaad waa ka ugu daran waxa weeye annahum bila qalbi waa dad bila naxariisa haba yaraatee wadnaba ma laha naxa meesha ay soo galaan oo xuru dagaaladoodu waa dagaalo aan dabiici ahayn dagaaladii caadiga dabiiciga ah ee la yaqaanay ma aha taariikhda hore dagaaladii lagu yaqaanay muslimiinta iyo Shiinaha haday isweeraraan magaalo la kala qabsaday dadka waxba lama yeelayo muslimiinta iyo salabiintii baa isdagaalay waa laga yaabaa marmar in dadka la laayo laakiin goor walba ma dhacaynin iyagu kuwani magaalada way dabarogayaan qabsadeen muddo 30 maalmood ah ama 20 maalmood ah ama 40 maalmood ah sargaalka ciidanka wata dadka magaalada askarta soo gashay lama hadlayo waxay doonaan bay qaadanayaan waxay doonaan bay gubayaan waxay doonaan bay cunayaan waxay doonaan bay dilayaan waxay dilayaan dhammaan dadka meesha degan oo dhan way dilayaan dadka meesha degan mesela magaalada Pekin la yiraahdo Shiinaha imika magaalada madaxda waa maalmaha markii ay qabsadeen 1212 kiina ahayd baan malaynaya markay qabsadeen caasimadii wadanka ahayd waxa ku noolaa 250,000 qiyaastii meelaha hal qof oo bani aadam kama badbaadin xogaa yar culimada u daayo ka badbaaday iyo saraakiil ciidana saraakiisha ciidanka qaarkoodna markay arkeen dadkooda sida loo galayo iyaga ay istilayba laakiin 250,000 kuna magaalada ku noolaa wax uu meel gidaafada iyo ku dhuuntay mooyaane dhiiga suuq walba qulqulay iyagu qasriyadii boqorka iyo meeshii quruxda badnayd iyo ma galayaan taambuugoodii bay ku wataan bahashan looda ay u jiidaysaa halka daarada guriga horteeda ay ku dhisanayaan qasriga wixii yaalo dhan way fadhaysanayaan oo goranayaan nimala Soomaali bay ahayn Soomaalida ma fadhaysto Soomaalida fadhaysto marka ma kala saarayaan bayna rajul iyo imraat nin iyo naag ma kala saarayaan
ilmo yaroo naaska nuugaya iyo wiil dhalinyaro ma kala saarayaan ku yar iyo sheekh ma kala saarayaan qof daalima iyo qof la dulmiyay ma kala saarayaan qof rayida iyo qof military ma kala saarayaan kulli waa baabi'in الموافق عبد اللطيف نيكا ليرا وحو يري marka tataarka ka waramayay وكأنهم قصدوهم إفناء النوع وإبادة العالم لا قصد الملك والمال waxay malaha u dan lahaayeen buuri nimankaas waa dadkii wax ka qoray ku jira waxay u dan lahaayeen bani aadamka inay baabi'iyaan ee dan umaanay lahayn xukun iyo lacag mayna doonaynin way qaadanayaan xukun lacagtii wixii dhan way qaadanayaan laakiin dadkii bay baabi'inayaan waxyaabaha kale ay kaga duwanaayeen dawladihii waaga jiray dawladdan ay sameysteen waxa kamid ahaa cidda dawladda kale ee ka soo horjeeda ma ogola haddii ay matalan wafdiyeynta dawladuhu u soo diraan ay Genghis Khan u yimaadaan ay yiraahdaan xiriir baynu sameysanaynaa laba dawladood Soomaaliya u leeyahay warkaas ma jiro ma ay hoos imanaysan dawladdiinu oo dawlad aniga ay hoos timaado ay taageersan ma noqonaysaan anigu waxaan doono u diro misal halka inta idinku joogina dawladda haataan anaan dawlad halka ka hada doonaysaan may dawladda kaliya ee intay cadeedu u soo baxda ka jirtay waa Genghis Khan buu oran jiray dawlad cid kale leedahay ma dhici karayso marka qudbil waahid marka cid kale lama ogola والغريب انهم كانوا يتظاهرون دائما بانهم جاءوا الى ليقيموا الدين marka qaar ku xoolan jireen diintan hagaajinayna oo cadaaladda yaan faafinayna markii hawlaaka iyo manooka khaaniyo warqadaha xataa dadka u diri jireen bay oran jireen daalimiin bad noqoteen dulmigaan idinka qabanayna warqadaha way arki doonaa aayada quraan iyo wadaliishanay waliba waa nin aan waxba rumaysnayn ilaahay ma rumaysna laakiin aayada quraan iyo waxa uu qori jiray niman adiibiina warqadaha u qori jiray sideed annahum la ahad lahum qodobka sideed wuxuu ahaa ballan ma lahayn nimankani cid ay la heshiiyeen oo ay heshiis ku daayeen ma jirto laakiin matalan magaalada kolkay ay ku adkaatay soo ay dadkiina cabsadaan ay ku yiraahdaan heshiis baynu wada galaynaa dagaalyahanadiinu hubka hay iska soo dhiibaan halka banaankaana ha u baxaan dadka rayidkina dhinaca ha u baxaan hubkii markay kala wareegaan ay magaaladii soo galaan khalaas gowracun ba ku bilaabaya wada heshiis baa lagu galay banaanka magaaladii soo gala la wareega hubkiina waan iska dhigaynaa khalaas hortay ku geynaya marka ballan ma lahayn xaga ballanta aad bay ugu liiteen ergada xataa loo diro inta badan way leen jireen ergada loo diro marka warqadii iyo wixii markay akhristaan waa laga yaabaa laba qof saddex qof inay yihiin laba way dilayaan mid bay warqada kale u soo dhiibeen xodhan sida kuwa aanu galay baa ku yaa la idin galay ku dhig iyagu ma soo warqad ma intay soo noqdaan meeshii ma imanayaan marka sida waxa uu la dhaqmay iyaga ergado dilayay dawladii mamaaligta marka dambe aynu arki doono sida iyagu u dhaqmayeen baa ula dhaqmeen taban dad ay rafaadiyeen bay iyaguna ahaayeen marka sifadoodu waxay la yarqubuna fi mu'minin illa wala din qof mu'mina iyagu marka ballan iyo daar midna uma aanay lahayn sifaadka guud ay marka nimankani tilmaamaha guud ay lahaayeen allati itasafa biha jaysh tatar saasay ahaayeen وهي صفات تتكرر كثيرا في كل جيوش لم يضع في حسبان قوانين السماء وشريعة الله انت بدلنا واحد قدوبيدا اي سميان عندما ان ku dhaqmaynin shariicada ilaahay iyo qawaaniinta samada aan ku dhaqmaynin inta badan مثلا waxa dhacday dagaalkii qoladii diinta ka noqotay waqtigii Abu Bakar disano kale ahaayeen saaso kale dagaaladii Bershiyaanka oo kale dagaaladii Roomaanka oo kale dagaaladii Salibiinta Shaam iyo Masar oo kale ka dhacay kuwii Salibiinta Andalus Spain iyo Portugal ka dhacay yani way jireen laakiin heerka kuwani gaadhayeen ma ayna gaadhin dagaaladii gumaystayaashii ku soo duulay qaaradaha Afrika iyo Aasiya Latin America Spanish ka Portuguese ka Ingiriis Faransiis Talyaani Yuhuud Mareykan oo maanta jooga kulligood imika daasoo ma arag heshiiska Gaza laga gaaray heshiis ma la kala saxeexday heshiiskaas waxa lagu heshiiyay maalinta maalin Hiblaayo intaas la sii deynaya maalintaana intaas la sii deynaya yaa ka baxa goor walba soo warbaahin kula dhageysataan Yuhuud oo ma ka baxda kolkaas waxa ku leeyahay anagu kama bixin qolada kala ka baxday say uga bixin adinka ka baxay
maraykankuna waa sax un buudha yuhuudda waxa ka baxday xamaas baa ka baxday waa saas xataa hadday dawlad ahaan lahaayeen maanta la aqoonsanaan lahaa oo urur argagixisa iyagu aanay u aqoonsanaan lahayn iyaga ka baxin buu odhan lahaa hoos iyaga maaragtay maaha xulafadoodii maaha isku dan maaha nimanka maraykanka la yidhahdo waxay dhaqan u leeyihiin cid kasta oo ay xulafo la noqdaan meel cidlaan bay aakhirka kaga tagaan taariikhda maraykanka cid kastoo ay xulafo la noqdaan meel cidlaan bay kaga tagaan bal hadda meel fog ba ha teginba waxaad kasoo bilowdaan dhammaad wixii qarnigii 20aad intii ka dambeysay dadkay xulafo la noqdeen maraykanku vietnam kow ka dheh vietnam baa dhinaca waqooyi shuuciyiintu kasoo galeen dhinaca koonfureedna maraykanka iyo dowladda isagu taagsan jamhuuriyadda vietnam la yidhahdo dagaalkii waa 20 sano socday 350kii ilaa iyo wuxuu socday 370kii markuu waxba maraykankiina dad badan ka dhinteen vietnamiintiina malaayiin ka dhimantay ayaa la yidhi heshiisan gaadhna Paris baa heshiis lagu gaadhay maraykanku wuxuu yidhi 2 sano kadib waan iskaga baxayaa waan ka tegayaa waa ta koonfureedda markaa isagaa moogtahay jooga 75kii maalinkuu meeshii ka tegayay dee waxa ka fawdada ceebta ka dhacday meeshaas diyaaradihii helicopterka ahaa waxay gurayaan safaaraddii maraykanka shaqaalihii maraykanka iyo dadkii iyaga u shaqaynayay kolkaasay taayirada diyaaraddii oo kacaysa way ka soo dhacayaan qoladii Vietcongkiina waxay ka soo galeen magaaladii waqooyiga ka soo galeen cid lay kaga tegeen shaahi Iran kolka halkan bariga la yiraahdo wadanka ay ugu saaxiibsanaayeen maraykanka 19 wixii dagaalkii labaad ka dambeeyay ilaa 79kii Iran iyo Israel bay ahaayeen Iran iyo Israel labada wadan ee xulafay ugu waaweyn oo meeshan ku leeyahay bay ahaayeen waa la isla soo waday shidaal fara badan buu ka heli jiray iyaguna waxay siin jireen hub iyo wax walba ay siin jireen dadkii baa ku kacay ayatullah Khomeini hogaaminaya 79kii ninkii shaaho cagaagan baa meesha ka baxsado islaantiisii wata hanoo iman bay ku yiraahdeen Henry Kissinger oo saaxiib ahaayeen Rida Shah Balawi Maxamed Rida Shah Balawi baa wuxuu ku yiri Carter ninkan waxa haya cancer wuxuu xanuunsanaya horeyna ana shakhsiyan saaxiib u ahayn maartay dhakhtarka uu ogolaada adiga saaxiibtinimada dhakhtar loogu ogolaanaya la yiri waa ninka intaas oo sanadada isla soo cunayeen Iraq 2003 dawladdii jirtay bay baabiyeen waxay doontay dawladdaasi ha ahaato laakiin fawda meesha ka dhigeen 2008 maxay yiraahdeen meeshan meel la sii joogi karay ma waan ka tageynaa 2011 marka la gaalo 2011 cidlo qoladii daacish meesha ka soo baxdo digaan digta ka wada dhigtay wixii oo dhan iyagu malaayiintii ciidanka ay siiyeen halka ka qaadatay Afghanistan 300,000 ciidan bay u dhiseen 2011 ilaa 2022 de maalintii ay ka baxayeen wixii ka dhacay meesha weynarka diyaaradaha xagga dambe laga qabsanay sidii waxa gaari aan caanalay tahay oo kala loo qabsanay maanta ugu dambaysa imika ma Ukraine buu cid la kaga tagayaa mise kuwa maleeshiyaadka kurdiyiinta bariga Suuriya marka Ukraine iyadu waa ka tagayay oo shaqada dictator baa tahay Ukraine madaxweynaheedu waa la soo doortay dictator ma Putin oo soo weeraray dictator oo kiise kan ku horeeyay u lahaa kana imika wuxuu ku leeyahay adiga dictator buu ku leeyahay haddaadan wuxuu ruushku leeyahay ogolaanin maca salaamada ku taalaaday saadskiga celinayso isha dhow waxaad sugtaa Israa'iil uu ku rafaaday lacagtu kaga dhamaato uu ku cagaago odhan doona nagada balaaya ku qaaday waan ka tagay adigana deeyaa ka celin markaa weediyaa ka joojinayadana maalinka ka joojinaysa marka saddexda awoodood baa jiray dawladaha islaamka dawladaha kristaanka iyo dawladda tataarka cusub ee soo baxday ayaa jiray oo dawladda tataarka soo baxday ay tahay awood bila taariikh ah bila ilbaxnimo ah meel loo raac aan lahayn imika uun dhaqan iyo diin aan lahayn imika uun bilaabantay khalaas markay bariga fog oo dhan badigiisa qabsatay ay bariga fog qabsadeen nimankii salabiyiinta ahaa iyo muslimiintooda way maqleen walow sida sheekada loo maqlayay lagu kala duwanaa nimankii salabiyiinta ahaa wafdi bay u direen Yurub bay ka soo direen waa masaafada u dhaxaysay Mongolia marka magaalada madax waxay ka dhigteen oo Tarar waxaan u jeedaa oo Tarar ma imika magaalada madaxda tan baasha Mongolia magaalada madaxda waa magac yar adag bay leedahay oo Tarar magaalada dagaalka dambe uu ka bilaabmi doonaa
aduu 12 kilomitir bay Yurub isku jiraan wafdi bay halka uga soo direen wafdigaas wuxuu leeyahay idinku caalam islaami waa dhul barwaaqa hantida iyo dahabka iyo lacagta iyo diamond-ta iyo waxa yaala wad yaabaysan xagga bariga ka soo weerara anaguna xagga galbeedka ka soo weerarayna laakiin nimankani sheekada miyay yaqaanaan waxa ku yiraahdeen reer Yurub anaga ma hoos imanayaan ma idin hoos imanayna dawladda madax banaan baa nahay ma jiro weera warkaas anaga cid wax nala qaybsataa ma jiraan haddaadna hoos imanaysaan anaga Mongoliyaanka ah oo anagu idin xukumayno soo dhawaada haddaynan idin xukumaynin halkan ka timaadaan wax ku noqdo waa iska kiindeynayna idin dilimayna marka iyaga marka dhulkan looga sheekeeyay dawladda Khwarazm iyo dawladda Cabbaasiyiinta iyo marka dawladda Cabbaasiyiinta aad ugu sharxeen dawladda Cabbaasiyiinta aad u garanayaan Khwarazmka aad uma garanayaan nimanka kale dhareerka ka soo yaacay dhulka ballaaran ee khayraadka badanna inay qabsadaan bay go'aan ku gaadheen nimankii Salabiyiinta ahaana waxay ku yiraahdeen beeshiina isaga noqda haddaad wax ka qabsan karaysaan muslimiinta dhulkooda ka qabsada laakiin markaan idin soo gaadhno haddaydan hoos imanin yaa waa halaagiina ku dhici doona waa inaad hoos timaadaan haddaydan hoos imanin waa khalaas waana arrimo iska dhaca goor walba in dadku qof waliba qofka uu cadawga u arko inuu qofka kale u kaashado wax badan oo taariikhda ka soo dhacay Roomaankii iyo Beershiyankii baa muslimiinta isku bahaystay iyo waligood baa lahaa dagaalo adagna ka dhaxeeyeen muddo dheerna ku dagaalami jiray dhulka Ingiriiska iyo Yahuudda laba ummadood oo col ah oo isu iman karina yaa u heshiiyay inay khilaafadii Cusmaaniyiinta ridaan Falastiin la wareegaan wax badan oo dhaca Mareykanka iyo Ruushka in wax la iska dawasaan maanta way isku kaashanayaan maanta way isku kaashanayaan inay isku kaashadaan saasay marka dagaaladoodu ay ku bilaabmeen marka nimankan Tataarka la yiraahdaa afar duulaan bay qaadeen oo waaweyn mid waa kaashiinaha ku qabsadeen marka waan dul marayno ka aad uga sheekayn mayno saddexda kale oo laba kamidii intooda badan caalamka islaamka ku wajahnaayeen oo Genghis Khan soo qaaday iyo ka Manako Khan soo qaaday labada iyaga si fiican uga hadli doonaa midka kale caalam islaamina qayb buu ka yahay qaybna Yurub weey waa kan ay Siberia mareen Ruushka ay mareen halka ay Ukraine ka mareen Poland ay mareen Jarmalka ay halka ka galeen hagaas ay ka gaareen weerarka hore waa weerarka hore oo marka ka labaad buu noqonayaa ama ka hore ee muslimiinta lagu soo qaaday Genghis Khan wuxuu ku fikiray in uu dhulka dawladda islaamku ay ku magacaaban tahay Cabbaasiyiintu inuu qabsado Ciraaqna ay xarunta u tahay isna markaa inuu qabsado dhulka inuu yimaado waa inuu soo gaara Afghanistan iyo Uzbekistan labada waa inuu qabsadaa ama midkood waa inuu qabsadaa inuu midkood qabsadana dawladda Khwarazmka ka soo ka sokaysa masaafada u dhaxaysa Shiinaha iyo Ciraaq waa dhul aad u kala fog 10 kilomitir ka badan marka ciidankii wuxuu noqonaysaa dhul bahgooye ah ta kale dhul badan oo muslimiin leedahay oo soo dhaxmaraya marka in dhul muslimiin iyo dawladda iyo imaarada ay muslimiin leeyihiin iyagu sidoo isaga jireen soo dhaxmaro Ciraaq iyo soo duulo Iiraan soo duulo ma waxa dhici kareen marka waa inuu dhulka dhan soo qabsadaa horta soo burburiya qodobka kale in gobolkan Caucasus la yiraahdo waa dhulka ay ku yaalaan Georgia iyo Chechnya iyo ay ku yaalaan qaybna way ka soo gaadhay Ukraine lafteedu way ka soo gaadhaa iyo Azerbaijan iyo waa dhul buuraley ah laakiin aad u barwaaqo badan aad u hanti badan iyaga dhulkaana inuu qabsado xagga waqooyi ka soo galo xagga waqooyi inuu kaga yimaado Genghis Khan markuu ku fikiray dhulka muslimiinta inuu qabsado wuxuu arkay in arrintu aad u adag tahay jariska xornimada inay tahay macluumaadka uu ka hayaa dadka dawladaha muslimiinta ana sida waa looga sheekeeyay dawladda la waqtigii nabigii baa looga soo sheekeynaya khulafaa ur-raashidiintii umayyiintii iyo awood ay lahaayeen iyo Cabbaasiyiintii yaa looga soo sheekeeyay ummadahan siday ahaayeen iyo siday maanta yihiin in marka uu dhulka tago isagoo macluumaad badan ka hayna way ku adag tahay marka waa inuu macluumaad helaa ogaada
dhulka ay dowladda Khwarazm markaa xukuntaana waxaa ka mid ah oo ku jira Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan iyo Pakistan iyo qayb Iran ah bariga Iran waa dad 7 dal halkii maanta 7 dal ay ku yaalaan ba dhulkana caasimadeeda horena waxa la oran jiray Armajanda caasimada imika Turkmenistan bay imika ku taala laakiin xilligan isagu soo weeraraya dagaalada ay dhacayaan Samarqandi baa la yiraahdaa magaalada ugu quruxda badan caalamka ay yahay ilaa maantana sidii un bay tahay qolada waxay ka tirsan tahay Uzbekistan ma ka tirsan tahay reer Uzbekistan aad bay u qurxiyeen magaalada aad bay u qurxiyeen wixii hore lahaydna way ilaaliyeen waxa dambe ku dareen waxay ka dhigeen deem wadamadan bartamaha Asia ma inagu xiriir lama lihin isma naqaano laakiin hadaa tagto waa caalamka marka dhismayaasha iyo horumarka wadooyinka tareemada waxa la yiraahdo dhan ugu horumarsan way laakiin deemaynan dadan xiriir isla leenahay ma aha Genghis Khan marka wuxuu ku fikray marka magaalada Armajanda waxa la oran jiray magaalada culimadana la oran jiray magaalada culimadu aad ugu badan yihiin baa Muhammad ninkii la oran jiray Muhammad bin Khwarazm loo gardamka sameeyay computer science ka xisaabaadka loo gardamka sababtoo ah caalamkii sameeyay magaaladiisii weey oo xilliyadaas mala wax yar ka hor ku noolaabaan u maleynaya isagu ninkaas iyo Abu Muhammad al-Bayruni wuxuu ahaa encyclopedia mawsuuc ahaa cilmi walba taariikh juqraafi fiqh dhakhtarnimo wuxuu ka tagay imika qoray 150 kitaab oo culumada kala duwan ah midkoodu yahay cilmiga waxyaabaha dhulka ka baxa daad ubax geed weyn wax walba uu ka sheekeeyay geed walba magaciisa iyo faa'iidada uu leeyahay wax weyn Abu Muhammad al-Bayruni Genghis Khan markii uu ku fikiray wuxuu heshiis iskala galay heshiis aan toos ahayn laakiin inay wada kala ganacsadaan Muhammad bin Khwarazm Shah oo ahaa marka suldaankii dawladda Khwarazm ka ahaa iyo jaarnimo wanaag inay ku noolaadaan labada xuduudkooduna uu soo gaaray marka dhibaatada jirta waxay ahayd Muhammad bin Khwarazm wuxuu u haystay nimankan Mongoliyaanka ee Shiina ilaa Kuuriya ilaa dhulkaas oo dhan gacanta ku dhigay niman reer guura oo xoolo dhulka u foofsado bari ka tagaya ayuu u haystay macluumaad xoog in kama hayo halka Genghis Khan 2 sano 3 sano xiriirka uu la lahaa macluumaad inuu meesha ka ururinay ciidankeedu intuu leeyahay hubkoodu intuu leeyahay wadanka xukunkiisu sidoo yahay dadka iyo dawladdu siday isku yihiin wixii oo dhanba macluumaadka uu helay wuxuu ogaaday inay dadka reer Khwarazm ku nooli in ay ka nacab yihiin Muhammad bin Khwarazm inuu adduunka jiray ee xoogun inuu ku haysto waxa uu ogaaday nin dagaal iyo sheekadan ku fiican ba inaanu ahayn nin iska raaxaysi iyo barwaaqo iyo maaragtay ciyaar isaga jira inuu yahay wuxuu ogaaday cid la dagaalami karta ee ciidan abaabuli karta ee khatar ku noqon karta inuu tahay wiilka uu dhalay Muhammad bin Khwarazm Alaaddin la yiraahdo qaar taariikhiin ka mid ah Jalaaluddin ay yiraahdaan iyo taliyaha ciidamada oo Taymur la yiraahdo labadan inay yihiin labada nin ugu halisan dawladdaas laakiin suldaanku uu yahay nin iska miskiin oo aan waxba hooyadii ay ka adag tahay hooyadii waxay sameey tiraahdo inuu sameeyo goor walba islaantaasina waxay xirfad bay ka dhax wadatay meesha wiil ay isku ay labada wiil badaayay u tahay Alaaddin ayay u tahay ka kala wasilay leeyana ayay u tahay laakiin kan ay wasilayga oo yar iyada reerkeedu ka soo jeeda qabiile kuush leeyada islaanta ka dhalatay qabiiladaas ka yarna ka soo jeeda halka Alaaddin hooyadii ay Turki tahay marka Alaaddin ninka weyn wax qaban karaan waxa rabta xukunka inay ka kaxayso
kaayarna inay keentay isku maartay isku reerkayeen wixii oo dhan buu helay macluumaadka oo dhan isoo haya marka laakiin wado uu dagaal ku qaadi kara ma hayo Genghis Khan waa soo arkaa meeshan inuu meel u qabsan kara ay tahay ilaahay cilmigiisa waxa dhacday marka arrinkeediisa oo aanay labada dawladoodba midkoodna aanay dagaalayna ku tashanina oo kediis umbaa iska dhacday tii umbaa dagaalkii sababtay arrintaa kediiskii maxay noqotay Genghis Khan ayaa wuxuu diray koox ganacsata ah oo ilaa 500 ku dhow marka xoolo hanti badan oo Shiina ka keenayna wada waftiga 500 dad muslimiina xataa ku jira oo dad reer Khwarazm ku jira oo isaga u shaqeeya laakiin isagu dadka cid qofka diin ahaan isagu kuma dilaynin qof kastuu ka faa'iideysanaya ama kristaan ha noqdo ama muslim ha noqdo haduu isaga wax la qabanayo waa uu la shaqeynaya isaga nimankii waftiga ganacsatada ahaa sida muuqaalka guud lagu sheegay waxay yimaadeen magaalo oo Tarar la yiraahdo oo xuduudka labada dal u dhaxeeya ku taala magaalada oo Tararna waxa xukuman nin la yiraahdo Yalan Khan oo suldaanka abti u ah iyo magaalada xukuma alaabtay suuqi keeneen baa la asqaraaray markaa nimankii ganacsatada Mongolianka ah alaabta qaali oo Shiina laga keenay xariirtii dahabkii dharkii la yaab kala bariis sonkor shaah sonkor wax alaab cajiib ah wada marka Yalan Khan wuxuu ku eedeeyay qoladani inay yihiin basaasiin waa laga yaabaa inay basaasiin haayeen laakiin basaasiinta rasmiga ah ee Genghis Khan warbixinada u geysay hadda ka hor bay wadanka warbixintiisa oo dhanba way qaadeen way geeyeen Yalan Khan wuxuu go'aansaday marka inuu xoolihiina dhaco qoladiina wuu laayay Genghis Khan markuu arrintii maqlay wuxuu yiri khalaas way gashay marka inaanu dagaal ku qaado meesha waftigu soo diray 3 nin ay ku jiraan oo laba ay muslimiin yihiin iyo nin ka hadhay qoladii la laayay ka hadhay suldaankii bay u yimaadeen waxay ku yiraahdeen dadka aad leesay suldaan maxamedow ma ahayn basaasiina ganacsatay ahaayeen Genghis Khan wuxuu ku leeyahay xoolihii laga dhacayna ii soo celi ninkii mujrimka ahaa ee dadka laayayna keen aniga dilayay dawladuhu inta badan wadankeeda dambiga ka dhaca ma yeelaan in ninka dambiilaha u dhiibaan wuxuu yiri marka suldaan maxamed wuxuu ku yiri hadduu ninkaasi khalad sameeyay hadduu saxsanaaba aniga maxkamadaynaya isna ninkan Yalan Khan la yiraahdo xoolo badan buu meesha ka helay safarkii u dhacay Soomaa wasiiradii buu laaluushay qaar badan oo kamid ah wasiiradii waxay ku yiraahdeen nimanka uu ninkan ilaayay basaasiin bay ahaayeen kuwan kalena imankan Allah soo Genghis Khan baa la sii doondoonay markaas oo maartay balaay musiibo la isku dooranay kuwii kalena waa la laayay ninkii kale ninkii la daayayna garhka laga rifay marka isku Genghis Khan uu tagay uu ooyay wuxuu yiri anigana garhka laga rifay saaxiibadiina waa la dilay oo saasay nimanka u galeen waxa jirtay marka dhacdo ciidamada Mongolianka iyo ciidamada Khwarazm xuduudka mar hore ay ku kulmeen oo boqortooyo yar oo waxa jirtay la oran jiray Saxonia-da galbeed marka dawlad yar oo hoos timaada waxay dawladda Khwarazm hoos timaada amiir Mongolian oo soo baxsaday nimanka Mongoliankuna waxyaabaha dhaqanka u lahaayeen qof amiira oo iyaga ay inuu ku og yihiin qoys taliye ka soo jeeday meel uun haday ku ogaadaan way soo dilayaan ma deynayaan marka wuxuu ka soo daba diray ciidan aan tiro badnayn oo sodomeeyo kuna oo gobayo iyo sabataay ay wataan magaalo waxay soo galeen Saxonia soo galeen gamta u joogsadeen magaaladii yare ciidan uu diray marka inay nimankaasi meesha rabshada ka jirto qalalaasi ka jirana waa la ogaa Maxamed Khwarazm wuxuu diray ciidan ay Timur uu hogaaminayo iyo ninkan hadda magaalada balaayada ka riday safarka laayay ama basaasiinta laayay midka dooraan baa aadaan magaaladii waxay soo galeen in la gubay la moodo oo qofkii cararay 4 leeb ama 5 leeb ay ku yaalaan meesha maduufaan baa ku dhuftay weeyaan waa maxay dadka waxa ku dhacay
askartii khawaarijta ku dadku isku wada midna qaar baa yiri war nimankan dadka laayay dad caadi ah ma ahayna ciidan la yaab la ahaayeen ee ciidanka meelahan aan ka raadino oo yihiin baa leeyahay wax ciidankii tataarka bay yiraahdeen meelahan soo galay ma aanan maqal sheekadaas ay ku yimaadeen iyagii oo marka meelihii ka raadinay suldaankiina waa loo sheegay suldaankiina ciidankiiba ka daweeyay baa labadii ciidan kadis mud isku soo yiraahdeen waxay ku yiraahdeen ninkii gabayo iyo sabata waxay ku yiraahdeen suldaan maxamedow annagu adiga kuma soconno kulama dagaalamayno waxaana loo soo diray nin amiir Mongooliyaana oo dhibaato ka geystay halkaas ninka uu baan dilayno ninkii kaliya meedan dilayno dadkii anagu aan mas'uulka ka ahaa dawladii hoos imanaysa baa dadkeedii oo dhan balayseen annagu dadka ma naan wada laynina isaga halka hore sii laayay bay ku yiraahdeen way wada halka maanta dhaaftaan buu warkay ciidankoodu inuu tireeyay isagoo ciidankiisu ka tira badan yahay gobayo iyo sabatay way tashareen gobayo waa taliyayaasha ciidamada ka soo raacay shiinaha ka soo raacay buu ku jiraa laakiin waa nin cabqariya sabatayna waa kiidaan marka dhaweedba ka sheekeynayna labadoodii way is eegeen waxay dhahan maxaynu yeelaa ninkan ina deyn maayay in yar aynu tusna bay dhahdeen waxyaabihii aynu qorshayaasha dagaalka aynu ka baranay Genghis Khan isagu intuu faraskiisii ka degay oo roogag loo goglay maxamed khawaarizm shah oo timir iyo anaas iyo maxay iyo iska dhigtay iyo haye bilaaba dagaalka hadaba iyaguna way arkayaan halku fadhiistay koox ciidan oo bir ah iyay yiraahdeen idinkuna waxaad sameysaan halka uu fadhiyo oo weerara halka uu fadhiyo ciidanka kale oo dhan jeera bas inaad dishaan waxa naftiina inaad badbaadinaysaan oo si kale ha u dilina annaguna labada cirifa kale aan digaandigta ka dhigana ciidanka laakiin wax yar kadib waa inaynu meesha isaga baxnaa waayo dhulkii waa qiyaastii waxay u jiraan meesha ay ka yimaadeen iyo meesha dagaalkaasi ka dhacayo 4,000 kilomitir bay isku jiraan dhul isku dhow ma macluumaadna hore uma darsan karaan waxay dhahay haddaad diiday cananaaska iyo timirta aad Ciraaq ka keentaan kula dhandhaminayna way ku dhahay laakiin nimanku inay marka rabaan Ciraaq sheekadu inay halka u socoto isagii bay u sheegeen ninkii lahaa ma aragtay nimanka duulanka ku qaado wada oo baanbeediisi markay bilaabeen bahladii inay tumaan durbaba waa la hayaaba isagii baa la soo galayba balaaya farda gaagaaban wada fuushan oo labada gacmoodba ku dagaalameen ba soo gashay ciidankiisi marka qolan xaggaas u yaacday qolan xaggaas u yaacday labadii dhinac ma kala yaaceen inaga bixiyay in baa la yiri khalaas si walba u daba orday way gaari waayeen markii dambe marka Genghis Khan nimankii gobayo iyo buu sugayaa markay qoladan waftigu u keeneen gobayo iyo markay u yimaadeen iyo sabata u yimaadeen buu war nimankii ma saragteen hawaan saragna dagaal iyo meedan dhaxmar ama ma wada sheekaystaan hawaan isku dhacno macal suldaankoodii baan isku hornimaday ka warrama buu khano ma waxaad rabtaa bay ku yiraahdaan run misabeen ninka ciidankiisu awoodda uu leeyahay farabadnida uu leeyahay wad yaabay bay yiraahdeen laakiin hal tilmaana hadaad nasiisood nala socoto cadeedu halkay ka dhacday ma gaarsiinayn bay ku yiraahdeen maxaa saa ku tirahdeen dawaan aragnay bay yiraahdeen dagaalkooda in yar baan ku yara dhufanayo markiiba way kala yaaceen ta kale sida dadka meelahaas ka yimaadaan ku sheegeen ninkan waa nin la neceb yahay oo dadkiisuba ay ka soo wada hor jeedaan bas duulaman ku qaadanay buu marka qoladan la laayay jawaasiis baa jawaasiis ma hayn adoo halkaas dagaalku ka bilaabmay oo tarar qolada lagu laayay ninka Yalan Khan la yiraahdo uu dilay sidaasay marka waxay ku soo galeen Turkistan way dagaal u soo diyaar garoobeen nimankii la oran jiray Genghis Khan iyo ciidamadiisi ay ku soo weerareen wadankii ay ku soo galeen marka halkaas aynu ku joojinaynaa maanta billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh